بسم الله. magacaygu waa Cabdimaalig Cali Warsame, agaasimaha xarunta cilmi baarista jaamacadda Hormuud. Maanta waxaan joognaa mid ka mid ah kambasyada jaamacadda Hormuud ee Daarul Xigma Tradisho. Waxaan daafuraynaa barnaamij ku cusub Soomaaliya kaasoo kor loogu qaadayo xirfadda iyo tayada cilmi baarista macallimiinta jaamacadda Hormuud iyo guud ahaan macallimiinta Soomaaliyeed. barnaamijkaas waxaa loogu magacaabaa Hormuud University Research Cave. hadafkiisana wuxuu yahay in qof cilmi baare ah uu la wadaaga khibraddiisa xagga cilmi baarista ah dadka xiiseynaya cilmi baaris inay sameeyaan. Sidoo kale madashan waxaa loogu talagalay in dadka ay isku xirmaan oo la sameeyo networking kaasoo kor u qaadaysa tayada iyo wada shaqeynta cilmi baarayaasha dhexdooda. Marka waxaan rajeynaa guud ahaan cilmi baarayaasha jaamacadda Hormuud iyo kuwa Soomaaliyeedba inay ka faa'iidi doonaan programkan.